magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacay kulan ballaaran oo lagu taageerayay shirweynaha Khaatuma Tiri sidoo kalena lagu dardargelinayay maalinta nadaafadda deegaanada SSC ee maamulka Khaatumo ee 18 May waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo iyo sidoo kale Professor Xildhibaan Cali Khaliif Galeyd oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Buuhoodle iyo shacabweyne aad u tiro badan oo iyagu dareenkooda ku muujinayay goobtaasi waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatumo Maxamuud Sheekh Umar shirka ummadda reer Khaatumo uu qabsoomaya waana la mabaxaya gudiyadina waa diyaar waana tagaynaa Somaliland markay hadlayso waxay tahay dadka iyaga goostay oo shacabka iyaga ogol oo caynkaas ogol warna ka iyaga ogol ee Khaatumo waana Khaatuma waaraysa oo Soomaaliyeed ka dhacaya midnimada Soomaaliya waarto waxaynu ogeysiinaynaa inaynu nahay dadka u dhimanaya ee u dhintay inaan Soomaali kala goyn in Soomaali ay Soomaali ahaato in calankeeni calan ahaado in dalkeeni uu san go'oyn Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato waxaanu cambaaraynaa khaliska silaanyo waxaanu leenahay message-kii aad noo soo dirtay uu noo yimid labana dareemin war miyaynu dareen waxaanu leenahay kuwa kale haddaad soo dirtaan iyada cidibooda kama dareensana dadkanina ma ilaawin xasuuqii 400 ee geesi ee halyeeyada ay nagaga dhintay ee ay yaalaan doobtan hagoogan kalshaale iyo jiida u dhaxaysa ma ilaawin in loo soo diro nin calooshiisa u shaqaysta oo waxaa misqaalada waa dadkanina uu dhaafay heerka way ka gudbeen waxaanu samaysanay maamul war maamulkeena miyayna ku kalsoonayn waxa la wixii awr kiraalaha iyo dabadhilif kora hadho xagla toosiyay waxa uu wataan hadheen Somaliland iyo waxa taageersanina hadheen Khaatuma isagoo Soomaaliya guul halka Khaatuma yaa xukunta ka tahay ummadda reer Khaatumo dhulkeeda iyada ka talisa qof loo soo diro oo la yiraahdo gidaarada isku sasawir waxba ka tari maayo adduunku wuu og yahay in Khaatumo ay xukunto dhulkeeda oo dhan waxba ka tari maayo ma moral jabi kartaan ma joogi karaan wallahi shirkeennii baynu diyaar garoobayna waa baxaya ardooyinku way baxaya shirkeenna waa qabsanayna intii soo taagi kartaan ma jirto ilaahay uu baa soo taagi kara waxaad u diyaar garoobaysaa 18 May oo ah maalinta qashinka Khaatumo ayaad u diyaar garoobaysaa waxaad u taagnaanaysaan difaaca dalkiina guuta koowaad iyo ciidanka iyo rag iyo dumarba difaaca dalkiina inaad u taagnaataan oo aad isku tiirsanaataan oo dabadhilifka diidaan oo kasi kala wuxuu wada diidaan oo kalaalushka cunaya diidaan baan idinka codsanayna ugu dambeyntii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Professor Xildhibaan Cali Khaliif Galeyd isagoona shacabka ka soo jeeda deegaanada Khaatumo ugu baaqay inay ka soo qayb galaan shirweynaha Khaatuma Tiri ee magaalada Taleex xuduudda soo wada xidhayna dhulka annaka leh cidii aan saaraalli ku ahayna ha ka baxeen war ma dhulka iyagaanu ka baxaynaa war ka bixi mayno horaanu ugu dhimannay horaash dad badan oo shuhadaaya oo dhowr boqol ah yaa u dhintay kuwa ka badanna waa u diyaar haddii uusan nafar nagaga hadhaynin hadduusan qof qodhihi nagaga hadhaynin amarku taaglaynta iyo caaqnimada iyo Soomaali diidnimadaas midna ma ogolaanayno idale wadaadku maalin dhawaytana wuxuu lahaa maamul baan ka dhisayaa magaalada la yiraahdo Buuhoodle gobolka Cayn maamul Somaliland ka dhisaya wadaadkii muxuu yiri faan badana oo hadalkayga ku soo koobaya magaaladan hadda toognayo cashaan joognay waxaan u joognayna
waxa ugu weyn shirka Khaatumo ee Taleex dhowr jeer dib u dhacay shirka inaan tagno shirka muddaba waxaad moodaa in layna carqaladeeyay samirkeedaynu yeelannay fidnaynu diidnay waa laynoogu talagalay caqligeennaynu isticmaalnay ma ahan markii u horeysay ee kulan noocan oo kale ah oo lagu taageerayo shirweynaha Khaatumo 3 uu ka dhaco magaalada Buuhoodle Cabdicasiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle